maxamuud khaliif beegsi waxa uu ku sugayay deegaanka edegan oo ka tirsan deegaanada waqooyiga Somaliland gaar ahaan gobolada galbeedka ee Somaliland maxamuud khaliif beegsi waxa uu la ildaran yahay nabar ka soo gaadhay dhinaca madaxa kadib markii adeerkii oo dhinaca maskaxda ka jirani uu gudin ku jafay haddaba maxamuud khaliif beegsi waxa uu la daalaa nabarkani oo ah mid jaray xididada dhinaca madaxa isla markaasina sida daawadayaal wada arkaysaan madaxiisu uu kala qaybsan yahay dhakhaatiirta Somaliland iyo gaar ahaan kuwa ugu dhow wadamada aynu dariska nahay waxba waa ay ka qaban kari waayeen maxamuud khaliif beegsi sidoo kale waxa uu dheer nabarkaasi in uu noqday naafo isla markaana lug iyo gacan ay baqtiday kadib markii xididadaas ay go'een iyadoo mararka qaarkood uu miir doorsoomo isla markaasina aanu waxba kala garanaynin kala garashaduna ay ka tagto waxaanu ummadda Soomaaliyeed ummadda muxsiniinta ummadda reer Somaliland cid kasta oo alla dartii wax ula baxaysa ka codsanaya in ay taakuleeyaan isla markaasina ka soo qayb qaataan sida uu sheegay maxamuud khaliif beegsi waxa ay dhakhaatiirtii dhammaantood u tagay waa sida ay u sheegeen dhakhaatiirta ku sugan Itoobiya iyo Somaliland in aan dalka gudihiisa waxba laga qaban karin balse xaaladiisa lagula tacaali karo dalka dibadiisa mana awoodo maxamuud khaliif beegsi in uu xaaladiisa ku soo dabiibo wadamada dibadiisa waxaanu ummadda muxsiniinta Soomaaliyeed si naxariis looga codsanayaa inay alla dartii uga qayb qaataan isla markaasina ay xaaladiisaasi wax kala qabtaan isagoo fariintani u diraya ayaa waxa uu yiri qorto ugu dhacay wax qabano 16 sano أنا طريق المغرب يطمن ويلا 16 سنة ضل كديش حلا كم قبل خير لي تبين ده دخل وتقال ما يستوى السكر كسر سكالة كل يوم بطل مسلم تحت عصاني هذه إلى هي أو دواء يقول طلق عليه إنه كل الدول تبين كل دواء إنت إلى دويان إلى يعني قاعد صار مسلمين ملك استوي شوفه ولا الكيجو مسلم كأهو ولا شيء ده مسلمة أهي والله ما أنت وحي الضصي بحضو أياك وانفع دونا مال أنت أناك وانفع دونين maal magac mansab iyo caruur midna balse uu ku anfici doono maanta wixii aad ku sii ridato akoonkaaga aakhiro alla dartii hadaba walaalkeen maxamuud khaliif beegsi oo dhibaataysan u caawi si uu xaaladiisa ula tacaalo isla markaasina wax loogaga qaban karo ilaahay baa awood loo wax ka qaban kara cidii ka qayb qaadanaysa amaba danaynaysa in ay xaaladiisani wax kala qabato waxaad kala soo xiriiri doontaan telefoonada shaashada kaaga muuqda